السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maalin cusub iyo wanaswada kram and videoganito waxa waye videoga ugu dambeeya for sanadka 2018 videogan wuxuu ka hadlaa qofkasi naftiisa ku jeclaata iyo jidadka dariiqada oo naftaada ku jeclaan kartid soo mida koowaad waxa waaye inaad horto naftaada ogaatid naftaada baro horto ya maxaa tahay adi maxaa kaa farxiyo maxaa kaa xanaajiyo inaad ogaatid naftaada mida labaad waxa waaye markii oo inaad mar qofka may aad dhihi kartid wax kasta oo suubi lagu dhaho wax kasta oo ii qabo lagu dhaho it's good baana inaa la ahaado Mr. Yes la ahaado laakiin sometimes marka maanta dhan wax kasta okay aan dhahayno culeysaan is saareynaa cala xisaab nafteena and that's wax noo fiican maaha mid saddexaad waxa waaye be honest with yourself naftaada runta u sheeg been ha isku sheegin adduunyada been waa u sheegi kartaa laakiin naftaada been ha u sheegin naftaada runta u sheeg markaa muraayad hor istaagtid maxaa qof fiican maa tahay mise qof xunaa tahay waxaa ku qaldan tahay iyo waxaa ku fiican tahay naftaada la hadal ee runta u sheeg mida afraad waxa waaye forgive yourself bani aadan anaa qaladan galena dembiyaan galena marka maanta dhan nafteena ma canaanan karno soo naftaada markaa qalad aa gashid inaa cafisid oo hore u socotid shanaad waxa waaye accept that everyone will not love you so qof kasta ma jeclaanayso inaa you have to be okay with that inay qof kasta ku jeclaanaynin inaa okay ku ahaatid waa maxaa la ii jeclaa waaye iyo maxaan qaban karaa si la ii jeclaado iyo cala xisaab naftayda isna wax fiican maaha so it's okay qof kasta ku jeclaa hays like dad ku jecel way jiraan mida lixaad waxa waaye stand up for yourself markii oo qofku kusoo xadgudubto inaa naftaada difaaci kartid adoo qelinoo dagaalamin inaa sheegi kartid inaa afkaaga ka hadli kartid oo qofka feelingkaaga aa ka hadli kartid adoo waxba isxanaajinin ama dagaal galin midda todobaad waxa waaye ask for help when you need it so a lot of times dadka qaarkood way kaxishoodaan inay caawinaada u baahanahay dhahaan it's really important inaa qof dhihi kartid walaalo waxaan igu caawin ama qofee maxaan ii qabo ceeb ma aha so marka caawinaad u baahan tahay naftaada ha casibin weydii dadka dhinacyadaada joogaan inay ku caawinaan naftaada take care garee is mida sideedaad of course inaa make sure inaa hurdo fiican hurdid cunto fiican cuntid oo healthy ah cabitaanka biyahaaga aa badsatid because naftaada markaa ku dadaashid aa markaas naftaada jeclaan kartaa aa dadkane wax u taraysaa mida sagaalaad naftaada inaa ku barbar dhigin qof weligaa naftaada qofa ku barbar dhigin taas number one reason oo dadka dib u celisa waaye oo naftaadana ku nacsiihaysaa dadkana way ku nacsiihaya xataa because qof kasta waxaa dareemaysaa inuu kaa fiican yahay markaa naftaada dadka ku barbar dhigtid midda ugu dambeysa waxa waaye inaa dhinacyadaada dadka joogaan dad ku jecel ah inay ahaadaan so qof kasta waxay qabtaa circle so always waqtigaaga la isbandigaray dadka ku jecel oo dadka oo ku dareensiinayaan inaa farxad ku dareensiinayaan inaa qof fiican tahay ku dareensiinayaan inaa dad oo hoos ku dhigayaan oo maalin kasto xumaantaada leh inay sheegaan ma ahane samaantaada sheegeenin waa intaas iyo wanaswada karaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu